Okay, good. Thank you so much. That's absolutely qaababka loo saameyn karo. Laakiin waxaa jira toddoba shay ama toddoba qaab ama toddoba sources oo wax lagu saameeyaa jirta. Oo toddobadaas dabcan qaarkoodna waxay ku xiran tahay inaad xil qabato, qaarkoodna xil kuma xirna, way kala duwan yihiin. So waxaa la dhahaa sources of power. Qofku markuu awood yeelahayo, siduu awood u yeelahaa, siduu saameyn ku yeelanaya ama uu saameyn karaa. So toddobadan shay ayaa ugu muhiimsan sources of the power. Yani insaanku qofku marka dad saameynayso toddobadan shay waa ku saameyn kartaa ama waa ku waxayn kartaa. Waxaan ka bilaabaynaa ka CEO-ga ay ku qoran tahay. Erga CEO waa fahamsantahay soo ma? CEO haye Chief Executive Officer waxaa laga soo qaatay qofka shirkadaha qofka ugu sareeya ayaa waxaa la dhahaa magaciisa CEO ugu saameynta badan institutionada shirkadaha waaweyn waliba ayaa CEO la. So qofka sidoo dadka kale u saameynaya ama saameyn u yeelanaya ama hadalkiisa loo maqlayo ama loo dhageysanaya qaabab kala duwan ayaa runtii jiri kara. Laakiin waxaan ka bilaabaynaa toddobadan source waa toddobada adduunka markii research la sameeyo ugu badan oo dadka ay ku saameyn karaan. Number 1 waxaa la yiraahdaa legitimate power inuu leeyahay awood sharci. So legitimate macnaheedu maxaa loola jeedaa? Waa sharci macnaheeda qofkan xilka loo magacaabay. asaa mas'uul ah. So warku yiraahdo haye waa in la raaco finish ya ugu dambeyn hadalka ugu dambeey macnaheedu ma inuu dadka ka caqli badan yahay, macnaheedu ma inuu dadka ka cilmi badan yahay, kuma xirna inuu dadka wax dheer yahay, kuma xirno. Laakiin waxay ku xiran tahay ya inuu haysto legitimate power awood sharciyadeed inuu haysto oo meel mas'uul ka yahay. So dadka kale oo dhan marka haddii ay mas'uul tahay oo meel mas'uul ka tahay dadka waa saameyn kartaa, waxaana ku saameynaysaa awoodaas iyo positionkaas iyo xilkaas iyo waxa lagu magacaabay ayaa dadka ku saameynaysa. That is a legitimate power. مثلا CEO shirkad ayaa mas'uul ka tahay, naadiga ardayda Soomaaliya ayaa madax ka tahay. This is waxa waaye legitimate power waa awood sharciyeed oo lagu siiyay waqti muayyan inaad maaragtaa 4 sano ayaa meel madaxweyne ka tahay, ra'iisul wasaarata xilaad haysaa, position aad haysaa, meel lagu magacaabo. Positionkaas ama mid dawlad ha noqdo ama mid private ha noqdo. Laakiin any position, any kind of legitimate oo ku siinaya sharciyad adiga inaad wax maamusho, haddii positionkaas aad joogto waxaad haysataa sources of what haye power. Awood aad wax ku maamulayso, awood aad wax ku saameynayso ayaa leedahay. Tee u fiican waan u imaan doonaa. Maxaa ka hooseeya oo iyadana ka hooseeya legitimate power marka laga soo tago ayaa reward power. Reward power macnaheedu waxa weeye awoodda abaalmarinta. dadku markii ay xilalka iyo meel ay mas'uul ka yihiin ama shirkado hogaaminayaan ama meel ay hogaaminayaan leaderska qaarkood waxay aad ugu fiican yihiin qof alaala qofkii wax wanaagsan sameeya haye way abaal mariyaan. So haddaad qofkii wax wanaagsan sameeya aad abaal mariso waxaad yeelahay باور iyo saameyn ayaad yeelanaysaa oo dadku way jeclaanayaan wax kugu jeclaanayaan maaragta rewardkaas iyo abaalmarintaas iyo dadka ina abaalmarintuna nuucyay leedahay iyada nuucyo leh mid financial dhaqaalaha jirta mid waxa jirta oo maaragta dalacsiina mid waxa jirta amaanta maxay tahay kaliya hatta amaanta maxay tahay ya is the reward ma fahamteen macnaha in qofku markii waxa kale oo iska dhaafo waxa ka fiirin meel waaweyn مثلا هذا فارح وكله daduu shaqo u diro oo institution ka dirsan مثلا naadiga ka tirsan qofaa shaqadii loo diraa si fiican u soo qabtay rewardka maxaa kamid ah thank you ya aad u mahadsan tahay shaqo fiican aad soo qabatay intaas maxay tahay is that reward dadka uma fahamsan waxay u maleeyaan taas maxay tahay taas wax weyn miya la wax weyn waay macna fahamteen macna is wax weyn lana qofka haduu inta wax soo qabto aadan ma aragtaa inta yariisa xataa aadan dhihin inta yariisa xataa dheh macnaha inta yariiska wax weyn waay macna sababtoo asiga waxay u galaysaa dareenkiisa iyo wixiisa ay wax badan runtii u galaysaa. So that is really waa waxa loo yaqaan reward power waa awoodda abaalmarinta waa awood runtii aad muhiim ah. Awoodda saddexaad maxaa waaye oo aad muhiim ku ah saan awoodeyna waxa loo yaqaan information haya power waa awoodda xogta waliga markaad hogaamiye tahay ama meel joogta ku dadaal inaad xog hesho. Inta ma fahamtay macnaha haddaad khabar moog tahay haddaad dhub tahay haddaad waxba aadan kala ogeyn هاي مركز هاي محل عيا هذا وحنا ما كله قد معناه هذا حين وحنا ما كله so if هذه position leadership أجوك حك هداد هيس أود الله هداد حك هيسه هاي أود بالله الدون كسر دونا ده عالم بيجا محي أود وليه واي أود وليه ما تقارن معنا وحي هايان يا just وحي هايان information وماشي ليه information is power Somali ده محكوم مع Somali محير أنا هاي محير Somali محير أنا واتقنا محير أنا ورهلا هاي tala hela maxaa loola jeedaa is the information power
war helaa tala hel war ma haysid waxba ma aragtaa ma aragtaa ma saameyn kartid lana khabarba ma haysid bamaana so inaad information hayso macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad saameyn leedahay ka dhigayso ma fahamtay macnaha inaad dadka saameyn lana dadku wax ay rabaan u sheegay hadduu qof hadduu ku sheegayo ka waran wax aadan weligaa maqlin adiga maxaa dhahaysaa macnaha ya dhegta taagaysaa waa rabtaa inuu lana weligaa ma maqlinba information is power so weligaa inaad information iyo xog badan yeelato xogta inaad hesho markaad hogaamiye tahay oo dadka aad maamulayso haye xagga dhanka xogta inaad ka horeysaa la rabaa markastoo ka horeysa markastoo meel iskugu yimaado waxaysan ogeyn waa inaad u sheegi kartaa haddaad u sheegto waxaysan ogeyn markasta oo la isku yimaado si fiican ay kuu dhegaysanayaan waa inay ku ixtiraamayaan ma fahamtaan waana saameynana ku yeelanaysaa laakiin haddaad dad meesha fadhiyo oo adigu hogaaminaysa haddii 100 shirka xog badan yihiin bimacna meeshaas waxaa kaaga leh weakness ayaa kaaga jira ma fahamtay macnaha soo iska ilaali meeshaas waa muhiim midda oo afraad maxaa waaye oo Soomaaliyeed u badan tahay Soomaa coercive macnaheedu maxaa loola jeedaa xoog waaye qasab waxaan samay qasab waaye qasab ma fahamtay macnaha coercive waa qasab marka dadka inta lagu dhiibo xil dadka adduunka aad aragteen dictatorship oo dhan maxay isticmaalaan awoodoodu dad inay saameeyaan ma reward ma personal ma wax oo dhan ma maxay tahay awoodooda sida badan ya waa coercive waa qasab waxaan samay hadii kale waa ku dili مثلا ama dawlad xataa ka soo tagta xataa oo timaado coercive ka meel kasto ku jira xataa qoysku gala qoyska aabaha uu isticmaala ama hooyadu isticmaalayaan cunuga yar waxbarashada aad hadaad aadi weyso waa ku garaac waa ku tumaya what is this macnaheedu maxaa waaye waa coercive power halka si kale aad u saameyn lahayd 100 shay oo kale ka fiican inaad ku saameyso qasab iyo xoog inaad ku saameyso laakiin qasab iyo xoogu waa culture aad u badan ee bulshada Soomaaliyeed ka jira ka soo bilow maaragtaa guriga ka soo bilow iskuulka imaad haye wad maaragtaa ilaa meesha ugu sareyso xagee waay dawladnimada Soomaaliya intoo dhan dhibkana daba taagan maxaa kamid ah oo wax loo hogaamiyo ama dadku ay isticmaalaan muxuu yahay waa coercive power waa tan kaliya waaba luqadda kaliya ayba dadku yaqaanaan qofka hadii meel loo dhiibo waxa ugu horeeya dadka markuu u yimaado maxaa waay wuxuu isticmaalaa waxa ugu horeeya isticmaalaa maxaa waay ya meeshaan aniga ayaa la isoo magacaabay qofka isdhaqaajiya ama bidix fiirsha ama midig fiirsha haye maxaa ku dhacaya cirka dhulka la wareegay waaba marka hore waxa lagu leeyahay horta maalinta koobaad cabsi gelisay kaaga cabsadaan maalinta koobaad cagaha iskugu dhufo bismillaahir rahmaanir yani anaga marka waxaan ka samaysanahay handadaad caga jugleen waa luqadda kaliya ay dadku yaqaanaan ama si fiican ay u isticmaalaan this is really one of the problems ay leedahay ay kamid tahay that's a coercive power ama awood oo waxa waaye maaragtaa meel lagu hayso qasab ina wax ku hogaamiso tan shanaad maxaa waaye awoodda shanaad maxay tahay reference power macnaheedu waxa loola jeedaa awoodda saameynta shakhsiga waa saameynta shakhsiga oo aad leedahay sida fasaaxada oo kale charisma ariga charisma ma qashan weli macnaha soo jiidashada leh sida adduunka hadda mesela Erdogan Mahathir dadka charisma leh oo leaderska adduunyada oo saameynta leh waxay wax ku saameeyaan waa reference power waa awood shakhsiyadeed waa fasaaxo waa saameyn waa soo jiidasho waa run waa ma fahamtay macnaha waa sifooyinka shakhsiga reference power oo dadku uu leeyahay oo dadku ay tahay inuu markuu hadal yiraahdo hadalkiisa la maqli la jihaynayo la aaminsan yahay that people will believe him that's a reference power oo runtii aad iyo aad maaragtaa iyadana saameyn u leh qodobka tan lixaad maxay tahay oo iyadana powerka lixaad muxuu yahay awoodda connection power inaad leedahay xiriir iyo galaangal badan inaad leedahay connection power dadku ma fahamsano aad iyo aad ayuu khatar u yahay gaar ahaan dadku markii ay cusub yihiin waxay u baahan yihiin inay sameeyaan connection power si uu qofku shaqo u helo shaqo u hesho waa inaad leedahay haye connection power waa inaad leedahay awood xiriir waa inaad leedahay awood xiriir maxaa loola jeedaa yani مثلا haddii halkan dadka fadhiya intaan oo qafood oo 40 qafood ku dhow tusaale mobiladiina haddii maanta aan la soo qaado oo mobiladiina la fiiriyo maxaa dhacaya waxaa dhacaya qaarkiin dhowr kun oo qof ayaa ugu jirta mobilkiisa ma fahamtay macnaha connectionkiisa halka qaarkiin uu ku jiro haye dhowr boqol laga yaabo macnaha laga yaabo kumanaan soo qofka uu ka dad badan yahay xagga connectionka haye macnaheedu maxaa waaye waa ka power badan yahay waana ka saameyn badan yahay waana ka awood badan yahay bimacna connectionku muxuu kuu suurtagelinaa maanta dhibaato yar haddii kusoo wajahdo haddii aad taqaano boqolaal qafood oo dhibaatada wax kaala qaban karta iyo haddana hal qof aqoonin ka war
is that معناها ما isku awood baa naqanaysa ma isku ma naqanaysa markii aad connection leedahay dhibaato kasta nolosha ku soo wajahda hebel ama heblaayo automatically dad bad xasuusanaysa dhag marka connection power waa awood cajiiba oo ay tahay in la abuuro qofka ay abuuraan si mar kasta ee dad ay yeelato mar kasta relationship aad samayso aad buu cajiib laakiin dadku ma fahamsana hadda barnaamij akademiyada hagaag ay bixiso oo la yiraahdo xirfadaha guusha nolosha waa barnaamij 9 xirfadood oo kala duwan oo dadka lagu hormariyo waa mid kamid marka waxa la dhahaa building extraordinary relationship and networking yani qofku inuu xiriir cajiib leeyahay marka dhalinyaradu sida badan waxay dhahaa kan maxaa loola jeedaa ustaad kan aad uga fahamsanin waxa dhahaa markii aad tagtaan ayaad qiimihiisa ogaad doontaa ama ogaad aad uu cajiib u yahay runtii waa fiiri adduunka markii research la sameeyay maxaa lagu daray todobada shay qofka bani aadam si uu saameyn ugu yeesho ugu saameynta badan so connection power awood xiriir maanta laga bilaabo haddana hore connection badan u lahayn maanta laga bilaabo qof kasta ee aragto maxaa sameynay qof kasta ee aragtay la kulantay isbarataan maxaa sameynaysaa telefoonkiisa iyo magaciisa ka qaado maalmaha kamid ah kaliya ha ka fikirin qofka maxaa ka faa'iiday warkiisana iga daa maxaa ka faa'iiday meesha kuma jirto والله هو وحال يرى قاعدة عنه أو جرت وحده هي قاعدة وحده هاي وراء كل علاقة فرصة معنى هذا محل ولا جيدا حرير كستوى سمايسو وحاكدم بيا هاي فرصة أيها كدم بيس قاعدة سقاط تماما وراء كل علاقة فرصة ولا جيدا معنى هذا حرير كستي عادية لطو أو ضد لحريرته فرصة أيها كدم فرصة مركز أما أجاو هاي أما هو جاني ولقى إذا صامرت مثلا قف قاعد سكول ويدين أو تقانين أو حرير لسه مين كرتي أو صاحب لنا كان كرتي أو لكن أمر بنقص هذا نجد وركيزة قف كهمل يهبلاي وركيزكم مجر أو قف كحل مهم الله ما قاعد ما ركت بس ما ركننا معنا أو قاعد هذي اللي ترى إنه هالمرة قف كاس ما باسم قينه هذا صفة عسكو برا لهنا كور ما أنت أوتوماتيكلي وحمان كيلا مركز دم ما شقينيس يا مركز دم هاي ما شقينيس وحال ربا marka hore ayaa la sameeyay so connection power awood xiriir ila leedahay aad ay muhiim u tahay kan ugu dambeeyay muxuu yahay awood ugu dambeeyay sabab ah oo la isticmaalayo expert power oo macnaheedu loola jeedo waxa loola jeedaa inaad khabiir noqoto bimacna inay jirto meel adiga lagaaga dambeeyo oo aad qatar ku tahay oo dad kale kugu aqoon aysan jirin wuxuu rabaa noqdo bimacna arinta expertigu wuxuu dhiirigelinayaa hoosta ka xariiqda skillska iyo xirfadaha ayuu dhiirigelinayaa please qof aan skill lahayn oo xirfad lahayn oo meel uu expert uu ku yahay aysan jirin qofkaas waa powerless macnaheedu maxaa loola jeedaa waa qof aan awood lahayn waxayna kamid tahay expertigu wuxuu kamid yahay waxyaabahan hadda mesela aan idin sheego oo awoodaha lagu yeesho qaarkoodna waa waxa adiga caadi u yeelan karto qaarkoodna waa wax kaaga xiran in mesela xil lagu dhiibo ama meel lagu magacaabo waxyaabaha aad caadi u yeelan karto maxaa kamid ah expert power kamid ah soo isku day inay jirto meel adiga lagaaga dambeeyo oo khabiir ku tahay arrintaas waxay abuuraysaa inaad skill leedahay ama xirfad leedahay oo adigu ay tahay wax aad baratay oo qatar ku tahay hadaa writing skills sida wax loo qoro proposal writer hadaa qatar ku tahay ka war waxa leedahay expert power waa lagu soo raadina meeshaas waxa si fiican u yaqaan ama wax qori kare hebel ama heblaayo ayaa lagu leeyahay waa lagu imaanaya iyadoo la socdo ayaa lagu imaanaya that is a power those are the main sources waa meelaha ugu muhiimsan ilaha ugu muhiimsan oo awoodda laga helo I hope waxaan rajaynayaa inaad awoodahaas maanta laga bilaabo practical u bedeli doontaan please mar raba arrintan in iska naqato just muxaadaro la jeediyo mar raba waxaan rabaa inaad qorataan aad ku fikirto mid kastoo kamid ah sidee haye practical ugu bedeli kartaa ama u samayn kartaa toddobadan shay inta aan u gudbin qodobka ugu dambeeya أو مهمسن أو influence tactics أنت أنا أوجد بين وحنا بقى إن فرص سؤال عن فرص هاي welcome do you have any question about this one يقابل يهديك وجيران وح وجيران if you have idea فكرة هذا هاي سؤال هذا welcome هيا وح قدرة طبعا على قدر سيد الله سميها أما تلفون لك قالها ما إن ساكن أنت سوق بكارها عليها قف كستوك هوري ما لمبرك يا جماعة يشاك that's not the case ساسمها يا معناها ما قفك وحاسكو برتين هاي مناسبة maxaa isku barateen haye munaasabad kulana ku kulanteen meel baa si u waxayseen qofka markaas waxaad heli kartaa way ama hab haye
aad isku baran kartaan qofkaas waa qofka aan ka hadlayo marka diiwaan gashataan waxaad kala qaadanaysaan midna hadda waxa caalamkan hadda aan ku noolnahay communication sida badan WhatsApp loo isticmaalo Soomaa mobilada iyo marka laga hadlayo qofka WhatsApp kiisa kala qabatay assalaamu calaykum halo hebel ama heblaayo seetahay halkaan ka wada xiriiri doonaa tusaale faa'iido leedahay ku sheegaa qofka macnaheedu kaliya ma ahan ina adigu kaliya ka faa'iideyso ma tusaale qofkaas aad isbarateen asiga naftiisa wuxuu ahaay qof meel ku fiican adigi waxaad u baahatay in lagaala shaqeeyo arrin lagaala shaqeeyo gaara wallahi arrintan yaan dadkii isbaranay ku fiican so wallahi hebel iyo heblaayo oo maalin hebla aad telefoonada ka qaadatay lambarkiisana already haye waa ku xariisan waa wacay haye waxaa leedahay maaragtaa waa waxay leedahay taas waa wan faa'iido waxa kale faa'iido adiga mesela qofkii hadda dan ka yeelato oo mar hore isbarateen communication aad samayseen ma waxa isku tihiin sida qof isku cusmaan isku tihiin maya isku ma tihiin le already waa istaqaanaan danaha aad leedahay waa u sheegi kartaa adigoo qof kale aan u soo marin caadi connection fiican ayaa yeelan kartaa I hope inaad fahanto macnaha hadda so it is good inaad connection ka samayso faa'iidooyinkaas farma ayuu leeyahay tankii soo ma mahadsan tahay waa horta cilad jirta waaye adiga position hogaaminada joogtaa dadkina inay shaqada qabtaan ayaa doonaysaa shaqadii haddii qofkan uu diido inuu hab kale ku qabto oo uu saameyn kale kugu yeesho see loo xalinayo ma la isticmaali karaa saasaan u fahmana ma la isticmaali karaa coerciveka iyo xoogga ma la isticmaali karaa horta hal xaba ogaada dadka marka la saameynayo boqolaal qaab ayaa loo saameeyaa it's not one way tusaale Soomaalidu waxay aaminsan yihiin ama ay dad badan oo kamid ah Soomaalidu waxay aaminsan yihiin cunugu quraanka ma baran kariyo illa in la dilo mooyaan cunugu ma dil buu ma aragtaa ya ay quraanka ku baranaya suurtagal ma tahay quraanka qofku inuu barto haye iyadoo la dilin ha waa suurtagal ma fahamtay macnaha marka garaaca culimada tarbiyada marka laga hadlayo in la isticmaalo awoodan ka horsiifka oo qasabka ah in la isticmaalo mararka qaarkood oo dhif ah oo qasab ah ayay noqon kartaa qodobada noo soo socda ayay ku jirtaa oo influence tacticska ayay ku jirtaa iyadoo hal qodoba oo ayay ku jirtaa marka mararka qaarkood inaad tiraahdo qofkan ciqaab ah samayso oo la isticmaalo way dhici kartaa laakiin ma ahan inay ku noqoto maaragtaa hab dhaqan iyada kaliya ah isticmaasho oo lagaaga baqo ma laakiin haddii xal kale la waayo completely la waayo in iyada mararka qaarkood la isticmaali karo way dhici kartaa si shaqadii loo socodsiyo that could be maaragtay waa suurtagal hay no information waxa waaye simple waxa loola jeedaa awooddaas had iyo jeer inaad hayso xog ka dheer ama ka badan haye inta dadka kale ay hayaan markaa saameynaan ku yeelay haddaa tahay leadership مثلا ama hogaamiye tahay oo dadkii aad rabto dadka waa inaad u sheegi karto macluumo cusub waa inaad u sheegi karto xog fiican taa marka maxay ku imaan kartaa waa inaad wax badan akhriso soo saasmaan haye waa inaad wax badan haye dhagaysato waa inaad raadiso waa inaad connectionka exactly isticmaalaya waa inaad adiga naftaada intaadan dadkii aadan la hadlin waa inaad baaritaan badan iyo wax fara badan aad soo samayso oo aadan iska iman justi saan u samayso so informationku had iyo jeer isku day inaad hayso xog ama wax ka dheeriya dadka kale waxay hayaan si aad u yeelato information power inaan ku gudbaan rabaa qodobka u dambeeyaan galaya insha Allah taala kadma ku tagay hay last haddii war la waayo maxaan dhahnay ya way kale ama hab kale ee suurtagal ay ku tahay haddii la waayo ayaa la isticmaali karaa dhahnay kan ugu dambeeya in laga dhigo lastiga ma fahamteen macnaha مثلا waalidku inuu had iyo jeer ilmaha garaaco سو wax ugu diro saas ma naqanay waa may laakiin markii uu waayo hay ani adar markuu ka soo xirmo saas oo kale dawladnimadu saas waay mararka qaarkood in la isticmaalo waa qasab haday noqoto waa la isticmaalaya laakiin inay ku noqoto ma ahan iyada ay ku noqoto kaliya soo awoodda inay noqoto wax ugu dambeeya oo la isticmaalayo oo rewardka kamid qaabka u isticmaali karto qaab kale aan la isticmaali kara macnaheedu meesha laga saarayo ma haya ee way ku jirtaa sourciga kamid laakiin waxa uu leeyahay ku noqonin hab dhaqanka koobaad iyo waxa koobaad ay ku naqanaysiisa kuna okay waxaan galeynaa marka qodobka ugu dambeeya ayaan galeynaa last pointiga oo aad muhiim ah qodobadan waxaan rabaa inaad isticmaashaan qodobada marka maxay tahay waxa jira waxa la yiraahdo proactive tactics for influencing people waxa jira tactikooyin iyo farsamooyin la isticmaalo oo dadka lagu saameeyo tactikooyin maanta waa idabara tactikooyin kana isticmaalaysaan dadka ku saameeynaysan dadka kale laakiin muu sheegaysaa marka ya tacticada waxay idin naqanaysaa soo ma macnaha ilaa waa tacticada waqtiga lagu kala duwan yahay macnaha
ما فهمتني معنا سوديسا تاتا كيسكا 10 marka qaybta ugu muhiimsan qaybtan practical wixii hore dhaca ay siinay qaybta hadda aan soo dhaafnay iyo qaybtan ugu muhiimsan ma fahamteen macna labadaaba waxaan rabaa inaad source of the power na isticmaashaan tacticooyinka isticmaashaan 11 tactico ee kala duwan ee adduunka research la sameeyay fiiri qarnigii 20aad cilmi baaristii leadership ka hogaaminta lagu sameeyay natiijadii ka soo baxday waxaa ka soo baxay in 11 kan shay inay yihiin 11 ka shay ee ugu badan ama 11 ka taatiko ee loo isticmaalo dadka in maaragta lagu saameeyo loo isticmaalo that is really waxa ugu muhiimsan cala al-idlaaq waa research iyo cilmi baaris ayay ka soo baxay taatikooyinkan marka maxay tahay adiga maxaa rabtaa hogaamiyaha tahay waxaa rabtaa dadka inaad saamaysaa doonaysaa in hadalkaaga la qaato waxaaga la qaato ayaa rabtaa soo see ku saamayne kuwana isticmaala waa qaab la kala isticmaalo ama la isticmaalo waan u imaan doonaa insha Allah taala number 1 kan koobaad muxuu yahay taatikada koobaad ee cilmiga hogaaminta marka lagu jiro dadka inaad u isticmaashaan maxay tahay waxa loo yaqaano rational persuasion waa qancin iyo ka dhaadhicin iyo fasaaxad intaasoo la isku wada daray ayaa imaanaysa waxa loo yaqaano persuasion erga persuasion waa ka dhaadhicin soo inaad isticmaasho logigaaga caqligaaga maskaxdaada fasaaxadaada hadalkaada intaas oo dhan inaad inta isticmaasho dadkii aad saamayso oo dantii aad lahayd ay fuliyaan ana hada loo isticmaalo soma marka institutionadu rabaan dad inay wax ku qanciyaan maxay sameeyaan dadkii la isku yeeraa kadibna waxa khudbad la xiriira qofka leaderka hogaamiyaha si uu dadkii u qanciyo ama uu sameeyo daadis waxa waaye mid kamida taatikooyinka ugu qatarsan ee dadka lagu sameeyo طبعا tan xoog ma soo saas ma macna it is more waxa waaye logic aqli fasaaxad adiga ayay qosaysaa waxa qofkan u soo bandhigaysa wax alaale wixii shakhsigaaga xirfado shakhsiyeed aad leedahay ayaa qofkan ku qancinaysa si uu maaragta qofkaas uu saameyn u yeesho taas waa taatikada koobaad oo runtii aad iyo aad loo isticmaalo taatikada labaad ee la isticmaalo si dadka u saamayso waxa la dhahaa magaceeda appraising ayaa loola jeedaa appraising macnaheedu maxay tahay dadka aad la hadlayso inaad dan ka tusto waxa aad rabto inay sameeyaan bimacna dadaa rabtaa inaad saameyn ku yeelato soo qofka afqaliya kaliya maahane waa inaad tiraahdo waxaan haddaad samayso ama taladan qaadato ama waxaan fuliso waxaan iyo waxaan oo faa'iido ah ayaa nooga dhalanaya ama kaaga dhalanaya soo qofki waa dhaqaaqa ma fahamteen macnaha qofkii uu dhaqaaqaya waxaad adiga aad kala hadlaysana wuu samaynaya sababtoo wuxuu ka dhex arkayaa danba uu ka dhex arkaya ma fahamteen macnaha soo qofka waa inaad dan ka dhex tusto exactly iyo benefit iyo faa'iidooyin waxa aad rabto inaad samayso kaliya weligaa markaad dad la hadlayso haddii matalan tusaale qof aad rabtaa inaad samayso qofka markaad samaynayso haddaad tiraahdo matalan danaana ka leedahay haddii aad qofka ballamiso ee hotelkaas galabta iskugu kaankeen oo la isku yimaado oo tiraahdo nin hebelow ama heblaayo dantaas iyo dantaasaan kaa leeyahay waxaasaan kaa rabaa in adeero waxaas inaad ii fulisaan doonayaa nin intaa waxaas ii fuli maxaa suurtagala inuu ku yidhahdo nin aniga waxaas kuu fuli maaya saxaabow nagu kala wada adiga waxaad sheegaysa aniga luqaddaa sheegaysa ma fahmine ya laakiin markaad isla markii kala wareejiso kawar oo tiraahdo nin waxaan rabaa arrin muhiim ah jirta arrintaas haddii aan samayno labadaynaba macnaheedu maxay tahay labadaynaba dhag waaye waan toosaynaa macnaha wax fiican oo benefit fiican ka helay isla markii qofku maxaa ku dhacaya ya that's why hoteelada aad aragtaan oo dhan 90% waxaa lagu karkariyaa karkaris ma taqaana macnaha karkarisku sida badan waxa laga hadlo maxay tahay waa wax uun maaragta benefit ama ha noqdo business iyo ganacsi ha noqdo ama projects ha noqdo ama xilal ha noqdo ama politics ha noqdo waxbaa la karkarinaya dadka karkarinaya ay faa'iido u wada jirjiraan so saas ma macnaha so this is appraising dadka markaa wax la hadlayso waa inaad benefit iyo faa'iido ka dhex aragto aad iyo aad ayay muhiim u tahay taatikada saddexaad maxaa waaye oo saddex maxay imaanaysaa waxa loo yaqaano inspirational appeals kan waxa waaye in aad kiciso qofka dareemihiisa inaad kiciso si danta adiga aad rabto oo u sameeyo hay maxaa kicinay qofka dareemihiisa inaad kiciso hawada qofka inaad geliso qofka emotional inuu u kaco haddaad gaarsiiso qofkan inuu emotion ahaan u kaco already dantii aad lahayd waad ka gaartay qaabkuu raba ha ku kaco
qaabab badan ayaa lagu kacshaa dadka emotionkooda iyo dareemahooda qaabab kala duwan ayaa lagu kiciyaa laakiin qaababkaas lagu kala kicinayo inaad dareemaha aad qofka ku kiciso dadka see dareemahooda loo kicin karaa Soomaaliya marka la joogo see loo kiciyaa labada shay oo Soomaaliya marka la joogo ugu saameynta badan ee dadka dareemahooda lagu kiciyo maxay tahay diinta waa mid kamid ah diinta waa lagu kacshaa صح